tartankii quruxda hablaha Soomaaliyeed ee soo bilowday 15 July kuna ekaa 30 isla bisha July ayaa la soo gabagabeeyay gobolada dalka iyo caasimadda gabdho iskiga kala yimid ayaa iska diiwaan geliyay tartanka quruxda hablaha Soomaaliyeed 13 ayaa ugu dambeyntii ku soo baxay quruxda gabdhaha Soomaaliyeed tartankan oo ay qabatay shirkadda Miss Soomaaliya 2023 waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xamar ayaa laga saari doona diyaarad tartankan mid u gaar ah ma aha shirkadda adduunka oo dhan ayaa tartankaasi uu ka dhacaya ugu dambeyn wadan ka mid ah wadamada adduunka ayaa la iskugu keeni doonaa iyadoo wadan walba gabdhahooda quruxda badan ee tartanka ku guuleystay ay haddana tartan ay geli doonaan gabdhahan 13 ah ayaa haddaba waxay tartanka ay ku gelayaan iyagoo metelaya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya guuleystayaasha nasiibka u yeeshay gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda ku guuleystay ayaa magacyadooda waxay kala yihiin Amina Basro Yasmin Nafisa Ali Bokase Farxiya Bedriya Usman Maryama Esther Difan Efraho Masalina Ikhlas Qurux Hamda Tay Alanmi 13 gabdhood ayaa haddaba shirkaddu ay shaacisay in tartanka ay ku guuleysteen aan idin xasuusiya tartankan diiwaanka kuma jirin cayil iyo dhuubni sidoo kale kuma jirin midab gaar ah oo la xulinayay casaan iyo madow gaabni iyo dheerar xisaabtu kuma jirin waxaase la qiimeynayay furfurnaanta wejiga dhoolla cadaynta habka jilliinka iyo dhar xirashada waa fashion model xayeysiin iyo sida ay u soo jiidan karaan adduunka oo dhan ama bulshada daawanaysa haddaba gabdhaheena Soomaaliyeed ee hadda tartankan ku guuleystay adduunka oo dhan uu ka dhacayo tartanka ayaa gabdhaheenu waxay gaar u yihiin laba arrimood kow iyagoo muslima xishoodka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban iyo diinteena suuban labo iyaga oo ah markii loo eego adduunyada inteeda kale hab dhismeedka xishoodka midabka socodka dhoolla cadaynta iyo weji furfurnaanta waa kuwa u gaara hablaheena Soomaaliyeed haddaba maxaad leedihiin gabdhahan 13 ah ee ku guuleystay tartankii ay qabatay shirkadda Miss Soomaaliya 2023 tartanka quruxda hablaha Soomaaliyeed adduunkana inugu meteli doona anigase waxaan ku soo gabagabeynayaa soo laabta idinkoo sida goosha quruxda adduunka oo dhan the most beautiful girl in the world gabdhaha ugu quruxda badan adduunka inay yihiin kuweena idinkuna aragtidiina waa inuu qoraalka iyo commentiga mahadsanidin